xaalad cakiran oo dhanka siyaasadda ah ayaa waxay ka taagan tahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Shalay magaalada Dhuusamareeb waxaa kulan ku yeeshay guddiga doorashada madaxweynaha iyagoo soo saaray jadwalka, waxaana isla shalay magaaladaasi lagu doortay guddoonka guddiga doorashada madaxweynaha. hase ahaatee xildhibaanada ahlu sunna ku matalaya golaha wakiilada cusub ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in aysan qaadacsaneen guddigaas iyo guddoonka la doortay. sidoo kale musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay xalay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in aysan u tartamayn xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug ilaa laga xalinayo tabashooyinka kala duwan. haddaba arrimahaasi waxaa inala falanqeynaya wariyahina Maxamed Cabdiweli Tooxow oo si toos ah ugu sugan magaalada Dhuusamareeb. Tooxow, salaan iyo soo dhaweyn kadib, bal marka hore ka waran xaaladda guud ee magaalada iyo sidoo kale deegaanada kale. waa mahadsantahay Maxamed Cabdinaasir ayaale. xaaladda Dhuusamareeb iyadoo waxay iska tahay mid suugeedu iska degan yahay marka laga reebo siyaasadaha halkan ka jira oo taasna waxay ahayd khilaafka soo kala dhex galay xildhibaanada dhinaca ahlu sunno ka yimid iyo sidoo kale xildhibaanada iyagu markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay soo xushay ka mid noqonaya ama ka mid ahba baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. xalay magaalada waxaa ka dhacay kulamo kala duwan oo ay yeelanayeen musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. waxyaabaha ugu badan ee ay ka hadlayeen waxay ahayd ayaanlow sidii xaaladda hadda taagan ee doorashada halkan ka dhacaysa iyagu markaasi ay uga qayb qaadan lahaayeen, inkastoo walaac ay ka muujiyeen oo qaarkood waxay soo saareen warmurtiyeed oo ay ku sheegayaan in doorashada aysan ka qaybgelayn haddii dowladdu ay gacanta ku sii hayso. arrintaasi hadalhayn badan baa ka dhalatay. dadka ku sugan Dhuusamareeb ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, walow ay qaarkood rajo wanaagsan ay ka muujiyeen dhismaha Galmudug sida hadda ay wax u socdaan, qaarkoodna ay iyagu markaasi walaac ka muujiyeen hadda xaaladda soo cusboonaatay khilaafka iyadoo kol hore sihayaha madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf gaalkacyo uu ka waday abaabul uu kaga soo horjeedo dhismaha halkan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado, haddana arrintan ay soo cusboonaatay. marka xaaladda guud ee Dhuusamareeb iyo hadalhaynta saaka ilaa xalay ayaan sidaas ay ahayd. waxaa lagu dhawaaqay xilliga ay dhacayso doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug iyo shuruudaha laga rabo musharaxiinta. dhanka kale xildhibaanada ahlu sunna ku matalaya shir jaraa'id oo ay qabteen waa ay qaadaceen. inta xagee arrintu iska qaban lahayd Tooxow haddii aad xuraansi kala duwan aad samayso la xiriirto guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta? bahashu markii hore waxay ka bilaabatay Maxamedow guddiga doorashada ama guddoonka doorashada ee Galmudug ee madaxweynaha cidda guddoomiyaha qaadanaysa. guddigu wuxuu ka koobnaa 13 xubnood, 8 dhinaca xildhibaanada dowladda xaggooda ayay ka yimaadeen, 5 waxay ka yimaadeen dhinaca hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca, waxaana ay markaasi iyagu ay dalbadeen dhinaca ahlu sunna xildhibaanadii ka socday in guddoomiyaha la siiyo, halka guddoomiye ku-xigeenkana ay dhinaca dowladda ay qaataan. hadal badan iyo sidoo kale isjiijid dheer kadib, inkastoo taasina ay suurtagelin ayaa dhowr jeer oo kulamo la isugu yimid waxaa suurtoobi weyday in lagu doorto guddoon doorasho madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa. shalay ayaa goobta ama xarunta shir kale waxaa ka dhacday iyagoo ka maqan xildhibaanada dhinaca ahlu sunnada 5 xubnood ay lahaayeen, sida iyaguba shirkooda jaraa'id ay ku cadeynayeen in lagu dhawaaqay waa iyagu sida ay hadalka u dhigeen goor shalay Dhuusamareeb shir ay ku qabteen ay ka hadlayeen. kolley guddigu ruuxadoodu madaxweyne markii ay doorteen guddoonka doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka Galmudug waxay sheegeen in hore ay u sii soconayaan hawshana la bilaabayo. shalay waxay soo saareen jadwalka doorashada. arrintanna waxay sheegeen inaysan saameyn ay ku yeelan doonin dhismaha Galmudug sida iyagu ay sheegeen. xildhibaanada qaarkood xalay kulamo kala duwan ay ku yeesheen Dhuusamareeb. waxyaabaha ugu badan ay ka hadlayeen waxay ahayd sida hadda xaaladda taagan halkan ka soo cusboonaatay Dhuusamareeb looga gudbi lahaa isla markaana ay wax uga qaban lahaayeen. marka arrintu sidaas ayay tahay. qaar ka mida
mas-uuliyiinta ku dhaqan dhuusamareeb iyo sidoo kale shacabka ayaan aragtidooda waxaan wax ka weydiinayaa ayaa leh sida ay u arkaan arrinta hadda taagan wasiirkii hore ee tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka galmudug axmed mire faafale ayaa hareerteeda midig taagan axmed soo dhowow ugu horeyn waxaan rabnaa inaan wax kaa weydiino dabcan hadda xaaladda soo cusboonaatay siyaasadaha galmudug ee ka jira tii gaalkacyo waad la socotay midda dhuusamareeb hadda ka bilaabatay khilaafka hadda yimid saameyn ma ku yeelan karaa dhismaha galmudug ee halkan ka socda waa mahadsantahay horta wasiirka hore ee shaqada shaqaalaha waaye marka xigtana runtii waxa dhuusamareeb hadda ka socda oo khilaafka soo cusboonaaday ah waa khilaaf salka ku haya in aan maamulku dhismin oo runtii caqabad iyo dib u dhac lagu sameeyo sababtuna waxa waaye doodda waxay ka taagan tahay oo ay ka bilaabatay waxay ahayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ee guddiga doorashada ee baarlamaanku soo ansixiyeen run ahaantii baarlamaanku brosesyo badan oo ku yimid ahlu sunna kuraasi ku lahayd beelahana kuraasi ay soo xusheen arrinta ahlu sunna waxaad ogeydeen in buuq badan ka dhashay oo dood badan ka dhalatay oo beeluhu ay diideen dowladdu waxay ku qasabtay beelihii arrintii inay aqbalaan runtii mas-uuliyadeena ahayd dowladnimo arrinta baarlamaanku mar hadduu fariisto oo guddoon sameeyana al-itixaad iyo ahlu sunna iyo wahaabi iyo jinni kalama lahan waa baarlamaan guddoon leh oo baarlamaanka galmudug la yidhaahdo baarlamaanku guddigay magacaabeen 13 xubnood ka kooban guddiguna waxay isku doortaan baarlamaanku sidiisa wax waa isku qabsadaan qofku waxa lagu kala baxaa waxay tahay majority rule cod dheeriya lagu kala baxaa arrintaas ayada ah qof kasta oo warqad cala soo saaray iyo mid kastoo hadda maskaxda ka fakaraya iyo qof kastoo Soomaali uu fahmi karaa inaysan sax ahayn in xildhibaanada 5 xildhibaan ay dhahaan anaga ahlu sunna la yiraahay hana la siiyo guddoon kuwa kalena baarlamaankii odayaasha soo xuleen ay guddoon doortaan runtii arrintaas horta waxay salka ku haysaa waxay tahay oo yacni aan dhihi karaahu galmudug 7 bilood ka badan ayaa halkan la joogay oo wax la isku jijiidayay dowladdu sax processka ayada mas'uul ka ahayd madaxweynaha galmudug waa u dhiibay reer galmudug ayaa iskhilaafeen oo arrintii dhaqaaji waayay processka maanta halkan soo gaaray marka oo guddoon leh oo doorashada lagu kala maxaa la dhahay guddoonkii soo baxay in maanta la yiraahdo guddiga 13 xubnood ah haddaan guddoomiyana laga siinaynin wax ma dhismayaan waxaan u arkaa inay tahay hagardaacin in maamulkan oo hana qaada in la diidan yahay waxa soo raaca runtii arrin kale oo waxa jirta cajiib ah oo u baahan in ayadana la sheego oo ah waxaan arkay statement ay soo saareen qaar kamid ah ragga musharaxiinta ilaa hadda maxaa la dhahay shaaciye inay musharaxiin yihiin horta musharaxu wuxuu musharaxayaa markii kaar uu qaato oo guddiga baarlamaanka doorashada hadda la ansixiyey oo guddoonka dhistay ay kaar siiyaan wixii ka horeeyay ilaa hadda xataa lama yaqaano yaa musharaxa kuwaa jooga kuwaa soo socda kuwaa imaan doona yacni musharax horta waxaan rabaa inaan halkaas idinka xataa saxaafadda aysan ka qaldamin musharaxiintu waxay musharax noqon karaan rasmi ah markii uu qaato kaarka aqoonsiga oo shahaadada uu qaato musharaxnimada uu qaato waxa soo raaca waa nasiib darro waxa meeshan ka taaganu inay dad siyaasiyiin ah oo mas'uuliyiin qaranka ka hayaahi ay maanta garab ku siiyaan koox rabta inay maamulkan hagardaaciso oo lugoyso oo ujeedadeedu ay tahay ama aniga waxaan raba hala yeelo ama wax soconaa ma lahan inay saboor gareeyaan ayagoo fiirina un kaliya dowladda iyo maxaa la dhahay khilaaf kala dhexeeya galmudug dadka galmuduga iska leh reer galmudugna waxay u baahan yihiin inay maamul helaan 7 bil intaan ka badan waxaa la socotaa waqtigii heshiiska halkan Djibouti oo ka dhacay ilaa maanta inta ka dhaxeeyda khilaaf iyo kala qaybsanaan galmudug ku jireen muddadii dambana dhismo iyo waxa lagu jiray processka in wax la sameeyo maanta marka in dad siyaasiyiin oo reer galmudug ka fakarayaan in waqtiga la sii dheereeyo because ujeedo kale oo ku jiri kartaa ma jirto in la yiraahdo anaga hana la siiyo guddoonka maxaa la dhahay ujeedo kale oo ku jirta qof diiday majority rule haddii guddoomiye la siiyana ujeedada uu ka rabo waxa waaye guddoomiyahaas inuu diido in doorasho dhacdo anagu waxaan ognahay marka fiilooyin badanaa jira oo isku xiran oo runtii ujeedadu tahay in maamul uusan meeshan ka dhismin oo dowlada shisheeye ay ku jiraan oo maamul goboleedyada qaar kamid ay ku jiraan lacag ku bixinayaan ku cadeynaysaa in dowlada shisheeye ku jiraan waxaan ku cadeynaa waxa waaye yacni dowladda federaalka Soomaaliya hadda waxa u haray hal sana u haray halkaas sana in maamulkan uusan dhismin qandaraas ah ayaa socda qandaraaska cid kasta waa ogtahay warbaahinta waxaa laga rabaa inay cadeeyaan oo dabagal sameeyaan oo baaritaan sameeyaan mas'uuliyadiina waaye laakiin anaga waxaan ognahay waxa waaye sabab kale
oo maantay lagu diidi karo baarlamaan guddi 13 xubnood oo la dhisay in majority lagu kala bixi waayo oo 8 xubnoodna ay guddi dhiseen 5 xubnoodna ay dhahaan anaga reer hebelana la yiraahdo mana yeelayno arrintaas ayadaa waxay u egtahay kaliya warkii suuqa ku jiray oo aan xogta anagu aan hayna anagu ma rabno inaan dawlad hebel nidhaano ma rabno inaan shakhsi hebel nidhaano ma rabno laakiin waxaan hubnaa waxay tahay ujeedada ka dambaysa in intaas tahay kaliya haddii musharaxiinta ay ka qaybgeli waayaan doorashada iyadoo arrintii ahlu sunnana ay meesha ay taagantahay aad ogtaa ka horeyso shalay warbaahinta markay shir jira aad u qabanayeen xubnihii ugu jira ay sheegeen in arrintaasi ay loo dhammayn sheekh shaakir xafiiskiisana uu soo saaray warqadda dowladda oo keliya miyaa doorashada qabanaysa dabcan musharaxiintu haddii ay diidaan inay ka qayb galaan see wax loo wajahaya qaabkay wax noqon karaan isleeda bal fikirkaaga markaa cabirto horta broseska dowlad dhisiddu waxay ka soo bilaabatay maalintii ra-iisul wasaare kheyr halkan yimid oo wasaaradda arrimaha gudaha xaaf uu ku wareejiyey mas-uuliyaddii uu ku wareejiyey dowladdu wax ma dhisanayso ee dadka wax u dhisaysaa ani aragtideedu waay yacni bini aadan waay wax waa ka qaldami karaan qalad wuu dhici karaa guddigaa la sameeyey guddigii la sameeyey waxay soo saareen baarlamaankaas waa loo wada hambaliyey guddooniya doorteen waa loo wada hambaliyey legitimateka galmudug maanta waxaa madaxweyne ka ah gudoomiye cali gacal gudoomiye doctor gacal ayaa ka ah madaxweyne ka ah kusimo ka ah musharaxnimadaa soo hartay marka dad badan oo musharaxiinaha magaalada jooga kuwo badanna waa laga yaabaa inay imaadaan musharaxa horta waxaan rabnaa inaan isla beesgarayno musharaxa maalinta uu shahaadada qaato isdiiwaan geliyo shuruudaha uu soo buuxiyo haddii uu ka baxaa la dhihi karaa musharaxu doorashada uu ka haray laakiin waxa ka horeeya waxaa la yidhaahdaa lobin ayaa la yidhahdaa lobin ay sii samaynayaan waa sii ordayaan inay waxay rabaan hanka ku jira sheegayaan laakiin musharax waxay noqon karaan markii kaararka ay qaataan oo ay yacni shahaadada ay guddoomaan markaasaa la dhihi karaa musharaxiintu waa ka baxday ani marka waxaan rabaa inaan sheego warbaahintu yaysan dadka jaha wareerin ilaa hadda galmudug musharax dhaba ma jiro oo madaxweyne iyo mid madaxweyne ku-xigeen midna ma jiro waxaan haynaa keliya dad raba inay musharaxiin noqdaan oo ay u tartamaan xilkaas ay u tartamaan waxaan qabaa galmudug broseska dowladda wax shaqa ah oo saaka uga haray ma jiraan wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeeda waa dhammaysatay guddigina waa dhammaysteen gudoomiye doctor gacala maanta kusima ka ah guddoonaa jira baarlamaanaa jiro sanduuqa ha lagu kala baxo majority rule ha lagu kala baxo haddii 89 xildhibaan oo baarlamaanka ay soo xaadirto 70 ama 90 ama 89 ama 50 ay soo xaadirto yacni 3 meelood 2 meel 60 ugu yaraan hadday soo xaadirto doorashadu waa qabsoomaysaa doorashadana waa la qabanaa waa mahadsan tahay axmed oo ku mahad celinayaa saaxiib weli dabcan aragtida dadka ayaan ku jirnaa iyagoo ka hadlaya khilaafka hadda soo cusboonaaday saamaynta uu ku yeelan karo dhismaha galmudug axmed maxamed jaamac oo xiriir ku magac dheer ayaa dhinacayga midig fadhiya axmed soo dhowow tv-ga universal waxaad ka mid tahay dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee halkan ku sugan bal ka waran xaaladda hadda soo cusboonaatay iyo dardargelinta dhismaha galmudug sida ay wax u socon karayaan iyo saamaynta ay ku yeelan karayaan khilaafka hadda jira aadaa u mahadsantihiin universal waa dhowahay xaqiiqatan dadka reer galmudug waxaan ku tilmaami lahaa maroodi ilaahay quwaddiisa ka qariyey siyaasiyiinta galmudugna waxaan ku tilmaami lahaa kuwa aan dareemaynin wax la yidhaha lahaansho oo aan u turaynin deegaanada laakiin yacnaha markii aad eegto sida ay wax u socdaan waxaan aad u dareemaynaa inuu jiro group interest wax la dhahaayo ahlu sunna waljamaaca oo ka mid ahayd saamilaydu waxay leeyihiin sadbursiya jiro annaga ma yeelayno tim kale oo u loobin garaynaya inay doorashada ka qayb galaan oo murashaxiin ah iyagana waxay sheeganayaan inay san arrintan ku qanacsanayn oo aysan ka qayb galaynin haddii sida wax u socdaan dowladdii dhankeeda iyadana waxbay tabashooyin badan baa laga sheegoyaa intaasi oo idil markii aan isku soo xorino waxaan siyaasiyiinta ku tilmaami lahaa hadday dhanka dowladda yihiin haddii ay kuwa galmudug yihiin haddii dhanka ahlu sunna waljamaaca yihiin hadday kuwii baarlamaanka loo doorto ee xildhibaanadaha yihiin kuwa aan dareemaynin lahaanshaha galmudug shicbiga galmudug meesha xanuunaysaahay waa in wax wanaagsan oo qurux badan oo tayaysan oo aan laysu qabsanaynin laga soo saaro waxaan islahayn oo aan haan weyn ka qabnay haddaanu nahay aqoon-yahankii deegaankan in ay dhici doonto u dhammaaday khilaafkii iyo isqabqabsigii laakiin
waxaan nahay oo aan leenahay maanta waxaanu nahay dad aad u ayaan daran waayo wixii quruxda badnaayoo intaasi lasoo yabyabayay oo juhdiga iyo dadaalka lagu soo bixinayay ayaa waxa weeye group interest iyo dana gurubaysi aawadood waxaan dareemaynaa in ay u istaagayaan oo waxa weeye qolo waliba ay leedahay haddii aan danahayga laga shaqaynaynin howli ma soconayso. galmudug dadkeeda waxaan ku tilmaami lahaa kuwo uu dhibaato ku hayo waraabe gaban yari qoorta u saaran yahay oo danaynaya yacnaha in uu waxa weeye danihiisa ka shaqe. waraabuhu wuxuu diyaar u yahay inuu micida daro. axmed waa mahadsan tahay sida wanaagsan oo nogala qayb qaadatay wakhtiga inahaya aawadeed dabcan ayaad ku darsan lahaydaan filayaa aada weyn waxaan rabaa dardaarankayga ugu dambeeya inaan iraahdo hogaamiyeyaasha haddii ay sameeyaan wax wanaagsan waxa ay dadku uga mahad celiyaan oo ay uga duceeyaan waxa wanaagsan quruxda badan ee ay sameeyeen. haddii ay waxun sameeyaanna waxa ay shacabka ku inkaaraan waxa xun ay sameeyeen ha nagu kalifinina inaan idin inkaarno ee ka hor wareega juhdiga iyo dadaalada la bixinayo gurubaysigana meesha ka saara ee shacabka galmudug aayihiisa laga taliya. aada umahadsantihin. aada u mahadsantay axmed maxamed jaamac waxa uu ahaa shaksiga isagu ka mid ah dhallinyarada halkan ku sugan marka aqoon-yahamiinta ah ee ka hadlayay arrimaha hadda ka taagan deegaanada galmudug ayaa la joogi saaka sidaad u jeedo iyo sida dabcan ay ka sheekeynayeen mas-uuliyiinta iyo qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada dhuusamareeb ayuu yahay dhuusamareeb xaaladeedu waxa ay tahay iyadoo mid degan inkastoo xaalado siyaasadeed ay iska jiraan wixii su-aalaha oo dabcan ad iga weydiinaysa arrimahan kaleetana xaggaaga ayaan u soo celinayaa. aada u mahadsan tahay tooxow. waxaa raba tooxow inaan ku weydiiyo maadaama khilaaf siyaasadeed uu hadda taagan yahay ilaa xalin uu soo jiitamaya saaka maxaa xiga haddii aad xiriiro kala duwan aad samaysay? maxamed waa mahadsan tahay waxaa la filayaa in baarlamaanka kulan ay yeeshaan inkastoo xalay musharaxiinta iyagoo markaasi dhinaca dowladda ka madax bannaan ee dowladda mucaaradka ku ah iyo sidoo kale hogaanka ahlu sunna waljamaaca madaxdooda ay magaalada ku kulmeen kolley halkaasna kulan albaabadu xunaya uu ku dhex mara waxaa iyana saacadaha soo aadan la filayaa in baarlamaanka ay kulan yeeshaan oo ay kaga hadlaan xaaladda hadda taagan wixii arrimaha kusoo kordha wararkeenna iyo sidoo kale barnaamijyadeena dambe ee tv-ga universal ayay daawadayaashu kala socon doonaan. aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaha telefishinka universal ee magaalada dhuusamareeb maxamed cabdiweli tooxow oo qayb ka mid a barnaamijka nooga soo daadahinayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug isagoo warbixin guud naga siinayay xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan magaaladaasi.